laakiin warkan xalay soo duulay oo si kooban loo tusay oo ah in madaxweynihii dalka iyo jamhuuriyadda iyo astaanta Soomaaliyeed laga keenayo mooshin leeyahay la rido waa war aan la qaadan karin meeshii wax laga bilaabi jirayna maaha meeshii wax laga sixi jirayna maaha Soomaaliya muddo dheer bay waxay ku soo jirtay dhibaatooyin iyo rafaad oo dawladnimadeennii ay aad iyo aad hoos ugu dhacday adduunka magaceennuna hoos aaday waxaa hadda muuqanayay ififaale fiican oo intii cabaar ahba soo socday oo ah inaynu dib ugu soo noqonayno khariidada adduunka iyo maabka adduunka iyo kaalinta aynu ku lahayn adduunka haddaynu nahay ummadda Soomaaliyeed iyo dawladnimada Soomaaliyeed iyadoo halka u socota waxaa la rabaa wixii dhaliilo ah adduunka oo dhan waa la saxaayay sidii qaanuunka ahayd oo nidaamka ahayd in loo saxo barlamaan baa jira waxaa jira in waxyaalaha la isla discussgarayo ama la isla falanqeeyo haddii dawladdu ay wax ku qaldanto barlamaanku wuxuu joogaa inuu saxo laakiin inuu dawladnimada oo dhan khalkhal geliyo uma socoto mana aha sidii wax loo sixi jiray haddii dawladdu heshiisyo qalada ay gashay haddii waxyaalo mucayyana oo qalada ay gashay oo gaf laga sheeganayo ama gaabis laga tirsanayo waa in la saxaa wixiina la soo proof garaya inta la soo cadeeyo oo bayanada la keeno oo burhaanta la keeno waa waxa loo sameeyay barlamaanada laakiin sideedaba barlamaankan oo awalba lagu qaadanayay dadka Soomaaliyeedna ay ku ogolaadeen dawladnimadoodii inay hana qaado aanay ahayn in dadka Soomaaliyeed mid u soo doorteen iyaguna waa ogyihiin dadka barlamaanka jooga way ogyihiin inaan qof iyo cod lagu soo dooran Soomaaliduna inaanay mid u soo dooran meesha in wada laaluush iyo lagu wada yimaado iyo qof walba lacagtiisa iyo dantiisa waa la ogyahay laakiin waxa soo dhan waxa ummadda Soomaaliyeed indhaha ay uga laabanaysaa waxa soo dhan oo jira bal dawladnimadaadii iyo dadnimadaadii iyo maaragtay shakhsiyadaadii adduunka iyo kaalintaadii ama xoogaa soo noqota oo adduunka inagu gudaha waxaan doonaa aan isku ahanay adduunka aan noqonaa la yiraahdo dadkii Soomaaliyeed waa taa dawladnimadoodii waa taa madaxdoodii astaantoodii waa ka calankoodii waa kaas intaas way waxa dadka Soomaaliyeed ay u sabrayeen waxa soo dhan ugu sabrayeen waxa ay ogyihiin oo dhan oo jira oo meesha iyo waxa lagu shaqaysto iyo waxa maaragtay ka jira marka in haddana wixii la yiraahdo dib ha loo celiyo wax oo dhan ha la isla dumiyo oo guriga madaxiisa nin dantiisa waayay ama maaragtay jago waayay ama contract waayay ama maaragtay qandaraas waayay ama maaragtay dawladda shisheeye iyo dad shisheeye ay maaragtay soo maalgeliyaan waxaas in lagu shaqaysto oo ummadda Soomaaliyeed mustaqbalkeeda 1500 oo dhalinyaro ah baa halkaan fadhiyay maanta qaacadan fadhiyay mid walba wuxuu jecel yahay dhulkiisa inuu wax ka noqdo dalkiisa uu tago ayuu jecel yahay haddii dalkiisa maalin walba lugta lagu dhagan yahay oo aan la rabin dawladnimada inay u hana qaado oo sharafi u hana qaado oo ummad is ixtiraamto oo kala dambaysa ay aanu lahayn haddii saas la rabo sawirka in loo sawiro maalin walba xageebay mustaqbalkoodu aadayaan dadkan iyo inta la mid ah oo Yurub iyo Mareykan iyo meel walba daadsan iyo Carabaha daadsan laga soo celinay xageebay aadayaan annagoo dhan baa waxaanu hiyo u qabnaa dalkayaga inaanu si nabada u tagno oo aanu u joogno intii dawladda lagala shaqeyn lahaa dawlad walba qalad way leedahay laakiin waa in lagala shaqeeyaa wanaaga waa in lagala shaqeeyaa horumarka waa in la is ixtiraamaa waa in la is qadariyaa midda kale dadkan hadda waxaan doonayay inay dumiyaan oo iyagu doonaya kursi kaliya uu ka lumay kuwa horay u soo qabtay iyo kuwa aan horay u soo qabanba kuwa horay u soo qabtay oo horay u soo maray kuraasta iyo kuwa aan u soo marinba oo uu kursi ka lumay oo madaxooda dhan aan ummad Soomaaliyeed ku jirin oo aan dan Soomaaliyeed ku jirin oo aan ummadda baaba'aysa oo dalkeeda iyo meel walba ku balan bashay aanay u muuqan ay u muuqato kaliya isagu see kursi ku helaa isagu see jaga ku helaa reerihiisa iyo caruurihiisana meelaha iyo dalalka kala geystay oo aan ognahay oo la socono oo guryaha ka qaata dawladaha kale iyo dadka kale ay guryo u dajiyeen oo filooyin u dajiyeen oo qusuur ay u dajiyeen ayana haddana dalkan inay ka shaqeeyaan lugu ku dhagigiisa inay ka shaqeeyaan wax ummadda Soomaaliyeed aqbalaysa ma wax raali laga noqon karana ma dadka Soomaaliyeedna waa inay waxa soo kale maanta ay ka dhigeen qabiil aanu kala qaybin oo maartay gobol aanu kala qaybin ee ummadnimadoodii iyo dawladnimadooda inta yar ee u ifaysa ay ilaashadaan waxaan doonayay inay kala lumiyaan ay ka diidaan dadka Soomaaliyeed waa inay ka diidaan waa in laga diidaa oo mooshiinadan wax duminta ah oo laga bilaabayo hal la dumiyo iyo hal cayriyo iyo hal la saaro laga bilaabayo hal la joojiyaan leena ummadana dan uma aha laakiin wixii qaladaho jira si wanaagsan hal isugu sheego hana la cadeeyo hana la soo cadeeyo taariikhdiisa hal la keeno meeshii laga cadeyn lahaa bay joogaan ragga baarlamaanka jooga xildhibaanada meeshii laga cadeyn lahaa bay joogaan
soo cadeeyaan ha ka saxaan baan leenahay ummadda annagu saasaan ugu naseexaynaya saasaan u sheegaya haddii ay iyadu la doonto berri iyagu xaggee fariisanaya anigu waxaan la yaabanahay oo wax yaabo caqliga bani aadamka iyo adduunku uu isweydiinayo waxa weeye qofka hadda duminaya sharafnimada madaxweynuhu marka uu yahay maaha maxamed cabdulaahi farmaajo waa astaantii madaxnimada Soomaaliya iyo dawladnimada Soomaaliya buu isagu kursiga ku fadhiyaa shalna nin kale ku fadhiyay daraad ka horeysana nin kale ku fadhiyay mid walba saasa loo ixtiraamaya haddii aan loo ixtiraamin ee adigu aad saa u dumiso oo aad lugta ku dhigto oo aad dhaqaaqiisa diido oo aad sharafta ka riddo oo aad magaca ka riddo adigu bari xagee fariisanaysa waa isweydiin kursiga aad fariisanaysa xagee yaala kursigii waaba dumisi kursigii waaba baabi'is waa burburisi aqalkii waa isla dumisi xagee baad fariisanaysa haddaadan adigu wax ixtiraamin sidee u doonaysaa berrito in lagu qadariyo in ummadnimo lagu qadariyo in astaantii qaranka lagu qadariyo war adduunku waa isqadariya intaasoo dawladooda adduunka baad tviyada iyo idaacadaha ka daawanaysaan iyagoo isdiidan oo dad la diidan yahay shacabkooda intaa weliba dad la soo doortay ah baa haddana la ixtiraamaya oo madaxweynenimadooda loo ixtiraamaya oo maaragtay hoggaanimadooda loo ixtiraamaya wixii qaladana loo sheegaya islaamku mucaarado waa hadmi islaamku wuxuu yaqaanaa naseexo waa la isu naseexaya nabigu calayhi salaam wuxuu yidhi addiinu nasiixa qulna liman qaala lillahi walikitaabihi walirasuulihi walia'immati almuslimiina wacaamatihim waxaa ka mid a madaxda oo loo naseexaya oo wixii qalada loo sheega oo wixii saxa loo sheega oo wixii run ah loo sheega waa loo sheega waana la saxaa laakiin wax lama dumiyo khalkhalna laba amuur ummadana qabiil looma kala qaybiyo lamana kala gado intaasaan anigu Soomaali ugu naseexaynaya dadkeeda waxgaradka ah iyo ummadda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay war dawladnimadiina difaac iyo magaciina difaacda maaha qof in la difaaco laakiin waxaan rabnaa anagu dalkayagi inaanu si nabad ugu noolaan caruurtan meelahan daadsanna oo dhulka ku balanbalshana dhulkooda inay u noqon karaan midda aanu doonaynaa middaas way wadadeedii waxba ka muuqanaye hala sii taman taabiyo yaan la duminin oo lugaha lagu dhigin wabillahi tawfiiq culimadu mar walba diyaar bay u tahay waana ka shaqaysaa habeen iyo maalina waa u taagantahay madaxday la kulantaa kuwa kale la kulantaa dadka kale oo ka soo horjeeda la kulantaa kuwa damaca madaxweynenimo ku jiray la kulantaa kulligood waa la kulmaa shacabkana way wacyi gelinaysaa wayna la hadlaysaa diyaar bay u yihiin maxay u ahaan waayeen iyo doorkoodii weeye dadkoo dhan bay u dhaxayaan cid aan gaar annagu maaragtay u leexanayna ma jirtee qadiyadda danta Soomaaliya iyo dalkan iyo diintiisa taasaan la khusaysa qofna ma khuseeyo